Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga. Maanta waxaa inoo wadaa hilib lo' ah. I have today beef jerky here. Waxaan usoo jarjaray si yaryar. Waxaan rabaa insha Allah inaan saaro dabka saliid la'aan. I need to cook without oil first. Waxaan karinayaa saliid la'aan leanno haddaan saliid ku daro aan daboolo biyo madow ka soo baxaya. Ma jecli biyahaasi. digsigoo qalalan aan ku shubayaa si aan usoo qalajiyo. Maraba hilib maraq leh inuu noqdo. Hilib waxaan rabaa dhacaankiisa iyo wixiisa dhan iswato oo aad u macaan badan maasha Allah tabaarakallah oo nice insha Allah. Marka waan soo walaaqayaa wax biyo kuma ku daraayo. biyo la'aan soo karinaysa biyo dhan markaysiin soo ma jeedin. marka insha Allah biyo la'aantaas soo walaaqayaa wax biyo ma ku daraayo sidiisa biyo dhalaaya. marka biyahaas markay ka dhamaadaan saliid waxyaabaha kale aan ku daraa insha Allah. I'm not gonna add water, just I'm gonna dry the pan and the meat alone. This is beef boneless. I'm gonna add olive oil. 3 qaado olive oil aan ku darayaa, teaspoon olive oil. Isku walaaqayaa xogaa isku soo kadinaa kasir oo walaaq si uu hoos ugu dhigin. Just move around. I don't want it to stick in the pan. waxaan ku darayaa cusbo oo qudaar ka samaysan. I'm gonna add salt and vegetable mix. I'm gonna add cumin powder. xawaaji duuduub aan ku daraa 1 qaado. toon, garlic, ginger, sanjabiil. basal, onion, potato, baradho, vegetable mix from Lidl. qudaar isku darsan aan ku darayaa hadda oo Lidl aan ka soo gaday isku jirtaa. biyo uma baahna ayada biyo dhalayso tan oo waxa waaye barafku ku jirto waaye. I get from the frozen directly to the pan. waan soo daboolayaa ilaa iyo 10 daqiiqo dabkaan u gaabinayaa. haddana waxaan sameynayaa 6 koob bur waxaan ka sameynayaa ceysh. 1 cup, 2 cup, 3, 4, 5, 6. 1 koob caano kuleel 1 cup lukewarm milk, half cup butter melted, subag la soo dhalaaliyay, cusbo, salt, sugar, 3 spoon sugar, 3 qaado sokor,
another cup of milk, koob labaad oo caano qandac ah. Isku walaaq. Next kastiro caana iga hartay. Remaining milk, 2 xabo ukun, 2 eggs, gacmahaygaan isticmaalaa. I'm gonna use my hand. Spread the flour to dough and mix it already. 5 daqiiqo dhig, 5 minutes rest dough. U googooy gabal yar oo kuusan. Cut the small balls. kulli saasaan usoo kuskusaya. I'm gonna make like this shape all. Saliid olive aan soo marinaya meesha. I'm gonna spread some olive oil on the table. I'm gonna press like that. Saasaan fidinayaa. labada dhinac yara saliidii xawaa gaarsiinaa fidinaya makanigooda. Khafiif aan kasoo dhigayaa. I'm gonna make very thin. kulli saana kasoo dhigay. I have made them all like this. Birtaan dabka soo saarto saliid la-aan oo qaleel ah. The empty pan. wax yar hoos kasoo qandicinayaa. markuu dhinaca wax yar aanan gubin wax yar maaragtay soo cadaado dhinac kale oo gedinaya. When it's turned a little bit, just they are like half cooked, I'm going to turn other side. Other side, dhinac kale u rog. Again other side, dhinac kale haddana u rog. wax yar saliid ah ku masax olive ah. I'm going to spread a little bit olive oil. dhinac kale haddana u sii rog. midka kale saar. Okay, maraqii waan ka wada doonaynaa. I'm going to check the down. And then the beef. Isku walaaqaynaa. waxaan ku daray kabsar. I added cilantro or coriander. I'm going to serve right now. ujeeda maraqa wax biyo ma lahan. waa maraq isku rasiin ah oo isku samaysan oo maasha Allah wada dheefa aad iyo waxyaabo wax kasta ku jiro. qudaar walba ku jirto. maasha Allah taati wixii dhan oo wada isla eg yihiin. all the same size, no have watery or exceed oil or water or gravy, nothing, just all same. waxaan ka saaraya kabsar. I'm gonna put on the top little bit cilantro
I'm gonna serve with that. That's my juice. I made it already. Kaasna waa cabitaankii qado dhammaystiran maasha allah tabaarakallah waa aad u macaan insha allah inaad ka heshiin aan rajaynayaa biidnillahi tacaala gabalkan aad goynaya waa fiirinaya maasha allah tabaarakallah carafta iyo macaanka maraqa isku dheelitiran yaa diyaarinaysa maasha allah tabaarakallah bismillah